gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo duqa degmada Berbera oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil ayaa waxay maanta si wada jir ah u magacaabeen tababaraha kooxda kubadda cagta uga qayb gali doonta gobolka Saaxil Axmed Maxamed Ismaaciil Shakuur waa tababaraha sanadkan loo magacaabay inuu tababaro kooxda kubadda cagta ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland uga qayb gali doonta gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Badaar iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici عادن ayaa iyaguna goobjoog ka ah goobtaasi lagu magacaabayay tababaraha kooxda kubadda cagta ee gobolka Saaxil maanta waxaynu halkan nolosha isku nimid anagoo u dhan bahdi sportska wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo barasaabkii heer gobol iyo degmada maayirkii barasaabkiiba waxaa ogtiin in ciyaarihii goboladu ay insha Allah بشدة وسالت كله والله بلا ميان ما دام بشدة بلا ميان وحمان تهلكن إن شاء الله برا سابكم أنا وسوق بنو نقوله وقت إن شاء الله ما ترنتي رحمن فرحان إنه أنا ما ممكن هذا إن أنا دقناها وسقوتين إني تذكر أنا صوت عني أنا halka badan soo ka soo xilnay aan soo tababarnay inay maanta u safanayaan heer gobol ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bareena in degmeen badan ku soo caanina wada maalaan inay heer gobol ay noqdaan kuwa ka keena xidigaha ugu sareeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midhaha ugu qiimaha badan ee bareena inay noqdaan waxaanu ka rajaynaynaa tababaraha gudoomiyaha ku dhawaaqayna tababara Shakuur sidii halkan aan ugu go'aamin lahayn inaan tababar ahaan qaadano Maxamed Axmed Ismaaciil Shakuur runtii waan isku waafaqnay waxaan halkan aan uga sheegayaa ciyaartooyga dhan mas'uuliyiinta gobol iyo degmada kale hay'adaha in ay dhammaan waajibaadka aan u xirtaaneen maanta aan ugu magacaabanay inay gacan ku siiyaan ma hawl yar ma hawl fudud ma waxaan leeyahay anu ku hadlayo magaca gobolka runtii Mr. Shakuur soo dhaw markoo waa Sakariya Cabdi Caabi telefishinka caalamiga Som News TV magaalada Berbera